mid walba mas-uuliyadda qaranku ku lahaa ayuunbuu sameeyo madaxweyne markuu madaxweynuhu maqnaa wuxuu ahaa madaxweyne qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna ku simaa madaxweynaha markaa wuxuu xaq u leeyahay mas-uul kasta oo iskhilaafaan ama uu u fahmi waayo shaqada inuu ka joojiyo inta uu imaanayo madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu dib u eego dabeedna sababta markaa looga joojiyo mas-uulka uu qiimeeyo dabeedna uu dib u magacaabo bedelo ama eriyo ayuu madaxweynuhu xaq u leeyahay labadoodii waajibkooda guteen waan u mahad celinayaa madaxweynaha aad baan uga mahad celinayaa inuu ii garto inuu caasimadii gobolka ku taalay caasimadii gobolka uu keeno isaga xaruntiisa ahayd iyadoo weliba xilli xasaasi ah oo doorashooyin lagu jiro oo ay tahay in maaragtay mas-uuliyadda gobolka ay noqoto mas-uuliyad culus oo u baahan nabadgelyadeeda iyo isku xidhka bulshada in laga shaqeeyo taana waxaan ballan qaaday inta tabarteeda iyo aragnimadeeda inaan ka shaqeeyo oo gobolkan aan maaragtay firfircooni ku soo kordhiyo dhiig cusub khilaafkeed ka dhex qarxay madaxweynaha Soomaaliland xaqu ku dambeyn doonaa madaxweynaha horta bilaadku markay shaqeynayaan carabi labadiisa daan ayaa isqaniina meel shaqeylaa fiican oo meel shaqo taal mar haddii la shaqeynayo bulshadu way iskhilaafaysaa mar baad ninkii mas'uulkaagii aad waxyaabaha qaar soo hor imanaysaan oo haddii aad ka gar joogto aad leedahay waxaan xaq baa marka marmarna isaga ka gar joogay marka haddii ay shaqo tahay kulli wal iskhilaafaya marka aniga isaga wax personal ah oo cadaawada ma jirin annagaaba dadku ugu saaxiibsanayn laakiin de shaqadii un baynu isla garan weynay taasaa keentay imikana saaxiibtinimadeeni iyo walaalnimadeeni iyo wax isku ahaanshaheeni madaxtinimo ya halkii bay kasii soconaysaa maaha waxaan cudad ka qaadayo in badan baa anigoo dhalinyaraha soo shaqeynayay in badan baa la yeeriyey in badan baan anigu sacsilay waxaan la aqaan anigu tan shaqo joojinta weliba aad baan ula aqaanaa kooban ee muddada yara marka waxaan way aragnimadeeda hore u lahaa way jirtay imika laba jeer hore mar aan taftiraa wargeys dawladda Cabdilaahi Maxamed Cali shaqada iga joojiyay madaxweynaha Riyaalaha dib igu soo celiyay Riyaalaha dib iga joojiyay oo gudoomiyaha wargeys dawladda Bilbali baadhay oo weedayno liigu weedayano gudoomiyaha Solja inaan xamar xiriir la yeeshay watii la baarisay ay dhiid soo weeday watii haddana shaqada dib liigu celiyay markii saddexaad markastoo aniga shaqada liiga joojiyay dib u laba kaclayaaba gudoomiye bulshada Soomaaliland ka dhageysan adiga madaxweynaha khilaafka soo kala dhaxgal isaguna madaxweynaha ku xigay haddana hargeysaas ku timaadaan wad ka wada shaqeynaysaa ilaa hadda madaxweynuhu waana ma ka galay khilaafka adiga madaxweynaha ku xigay madaxweynuhu labadayada bay deesaanoo madaxweynaha aniga ku sheegay wax personal aan madaxweynaha naga dhaxeeyay male waajibkii uu lahaa uu gutay marka mas'uulka isla fahmi waayeen shaqada xaq wuxuu leeyahay inuu ka sii joojiyo xaqiisii buu gutay waajib ah waa wax shaqo weeye wax personal ah maaha aniga Mustafa Shiine ma nacba taaniguna isaga ma nacbi laakiin wixii shaqada u baahayd in isku khilaafnay tiin haddii gobolkii aan isku haynin laga gabi haddii mar dambe wax dambe maadaama halkan hadda wada joogno haddii timaado maybe inuu madaxweynuhu dhex galade laakiin iminka markuu madaxweynuhu analyze gareeyay oo anigii yeedho isaga arkay wuxuu soo saaray go'aankiisa anigu aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu qanacsanahay